marka xigta waxaan hambaliyeynayaa oo halkan ka hambaliyeynayaa dhammaan taageerayaashii iyo dadweynihii reer Soomaaliland ee isbeddelka u codeeyay oo codkooda siiyay axsaabta mucaaradka ah. waxaan si guud ugu hambaliyeynayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel ay joogaanba oo nasiib nabadgelyo ah u codeeyay muddo 2 biloodana foolinayay inuu dhismo shirgudoonkii golaha wakiiladu oo hawl badan iyo tacab badan ay ka soo mareen. waxaan hambaliyeynayaa xubnihii golaha wakiilada ee saaka u codeeyay shirgudoonka cusub anigana iigu doortay gudoomiye oo aan leeyahay kuwa ii codeeyay iyo kuwa iga codeeyay waa golo qura oo magac qura leh oo ah golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waanan hambaliyeynayaa dhammaantood inta ay leeyihiin. waxaan rajaynayaa in insha Allah tacaala waqti badan oo inaga lumay muddada 2 bilood ee isriixriixu jiray aynu u gudi doono una abaal gudi doono dadweynihii muddada dheer milicda iyo bacadka inoo taagnaa dadweynihii inaga dhur sugayay inaynu isbeddelkeeno insha Allah tacaala. waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay inuu noqon doono golahan maanta odayga la iiga dhigay gole dalka wax ku soo kordhiya hadday noqoto hawlihiisa gaarka ah ee loo igmaday iyo hadday noqoto hawlaha iyo qabyooyinka badan ee qaran ee ina hor yaalla inuu qaybtiisa kaga beegan insha Allah ka qaato. waxaan rajaynayaa inuu golahan noqon doono gurmad qaran oo qaranka u gurman doono idinka Ilaahay. waxaan rajaynayaa muddada 2 bilood oo waqti badan inaga lumay oo hadday xukuumad noqoto iyo hadday xisbiyo noqoto iyo hadday golayaal noqoto midnaba aanay ka shaqaynin dantii caamka ahayd inteedii badnayd ee lagaga mashquulay hawlihii doorashada inay soo kabi doonaan ama gudi doonaan waqti badan gelin doonaan sidii danta caamka loogu jeesan lahaa sidii loo midayn lahaa dadweynihii ay kala irdhaysay xanaftii doorashadu ayna uga dambaysay xanaftii kale ee shirgudoonka. waan rajaynayo hadday noqoto xisbiyada qaranka oo isku mid ah dantooduna mid tahay ayna tahay inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan inaynu dib dadkeennu u ururin doono haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaro. waxaan rajaynayaa in golihii aan odayga u ahaa ee la ii doortay aan ururin doono midayn doono habayn doono insha Allah tacaala wax alla wax kasta oo qabiyo oo ka jira golahana aan u gacan banaanaan doono. waxaan rajaynayaa waqti badan aanu gelinno haddii Ilaahay raalli ka noqdo in dadkaana soo doortay ee tabashadoodu weyn tahay oo aan hubo inaanan dabooli karin baahiyaha yaalla ee ay dareemayaan iyo filashooyinkooda ah wax xaqna loogu leeyahay iyo waxaana loogu lahaynba inaanan dabooli karin waan hubaa. laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaanu dadaal badan samayn doono. waxaan weydiisanaynaa dhammaan bulshaweyntiina soo dooratay annagoo uga mahadnaqaynaa doorashadii iyo isbeddelkii ay u codeeyeen inay noogu duceeyaan insha Allah tacaala in Ilaahay nagu garab galo. waxaan weydiisanaynaa madaxda axsaabta qaranka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay golaha kala shaqeeyaan inuu sidii u gudan lahaa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa haddii Ilaahay idmo. waxaanu ballan qaadaynaa golo ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka ee dalku leeyahay ayna aanuna ku dadaali doono sidii aanu isugu wadi lahayn dadka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.